waxaa maanta noo soo gabagaboobay kulan ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka Soomaaliyeed ay la lahayd wasaaradaha shaqada iyo dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliyeed. kulankaas oo ujeedadiisu ahayd inaan ka wada tashano siyaasadda qaran ee shaqo abuur ee lagu jihayn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iideysto aan uga mahadceliyo dhammaan ka qaybgalayaashii ka soo qaybgalay oo ugu horeeyo dowladda Puntland ee Soomaaliyeed ee aan martida u ahayn oo waliba dadaal fara badan uu geliyey wasiirka shaqada iyo dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland ee Soomaaliya wasiir jaamac aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa martisoorka soo dhaweynta sharafta leh. waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan ka qaybgalaashii kale oo ka soo qaybgalay wasiirka shaqada ee dowladda Hirshabeelle, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland, wasiir ku-xigeenka shaqada iyo shaqaaleysiinta dowlad goboleedka Galmudug, wasiir ku-xigeenka shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir gudoomiye gobolka Banaadir ee qaybta howlaha guud,